موادين ma jeceshahay habeen walba oo khamiista jamcana soo geliyo in aad ku guulaysatid lacag $200 ah adigoo ka qayb qaadanaya tartan aad iyo aad loo fududeeyey looguna talagalay in bulshada Soomaaliya looga faa'iideeyo waa barnaamij cusub magaciisana waxa la yiraahdaa sida shaashada idinkaga muuqataba nasiibka jamcaha iyo $200 barnaamijkaas ayaa waxa uu bilaabanayaa maalinta khamiista ee nagu soo food leh ee taariikhdu ay tahay 11 bisha March marka ay tahay 8 fiidnimo ee Soomaaliya arrintaas waa muhiim barnaamijkaas wuxuu soconayaa 12 week ayuu soconayaa wuxuuna ku egyahay 27ka bisha May ee sanadkan aan ugu guda jirno ee 2021 sideedda fiidnimo waxaan ugaga dhignay ee Soomaaliya waa xilli fiidkii ah dadka oo dhan ay cishii soo tukadeen guryahana lagu jiro qof walbana uu fursad u helayo si waan idinla shaqaynaynaa sad idinkuba noola shaqayseen sideedda fiidnimo sidaas ayuu u noqon doonaa haddii ilaahay yiraahdo barnaamijkuna wuxuu socon doonaa 20 daqiiqo oo keliya marka laakiin waxaan u gelinaa 7:50 daqiiqo marka laga baxo salaada cishada waxay kadib 7:50 daqiiqo ayaan soo gelinaa 10 daqiiqo si ay dadku markaas waqti ay u helaan ay markaas ay barnaamijka nooga qayb qaataan 8 oo go markay saacadu ku fadhido haddii 10 qof ay joogto live tahay iyo haddii 500,000 live yihiin iyo hadduu hal qof live yahay barnaamijku waa bilaabanaya cidna loo joojin maayo waa haddii Allah raxmaanka uu ka raali noqdo 20 daqiiqo barnaamijku siduu u dhacayo ayaan jecelahay inaan idinkaga dhaco haddii aanu su'aalo ka dhigno oo su'aalo dheer idin weydiiyo 20 daqiiqo yar dadka qayb galayana way yaraanayaan fursadiina way yaraanaysaa sidaas waxaan ka doorbidnay in aanu warqado yaryar duubno dabadeedna quraarad ku ridno aad arki doontaan kulligiin haddii la yiraahdo tan ka yara ballaaran dabcan dabadeedna qofka taleefanka soo gala khadka soo gala numberka u horeeya ayaa loo soo qabanayaa dabadeedna waa la furayaa qofku uu eegayaa halkan sad iminka iyo arkaysaan baa loo wada arkaya oo waa arrin xalaal ah oo aan musuq iyo laalaab iyo hiilin iyo waxaasaan lahayn qurunka dabadeedna warqadii ayaa la furayaa saasaa loo saarayaa haddii $200 ay ku qoran tahay adiga ayaa iskale habeenka khamiista ah isla habeenkii inaan kuu soo dirno ayaan isku dayaynaa laakiin maadaama ay Soomaaliya late ka tahay dabcan waxay kugu soo dhacaysaa taleefankaaga haddaad taleefon markarti inay kugu soo dhacdo by taleefonka lagugu soo dirayaa nidaamkan touch ay isticmaasho ayaanu adeegsanaynaa haddii la yiraahdo dabadeedna taleefonkaaga ayay kugu soo dhacaysaa marka aad guulaysatid iyo markay kugu soo dhacdo waxaan jeclahay isku mar noqono maxaa yeelay anagu xilligaas xafiisyada ingiriisku ee xawaaladu weli way furan yihiin gaar ahaan Taj oo barnaamijkan iyadu fududeysay Taj UK weeye saaxiibkay Bashiir nin oday oo hogaaminayo aad iyo aad buu mahadsan yahay marka isla markiiba waxaan la hadlaynaa xawaalada Taj waxaan u gudbinaynaa adiga magacaagii iyo nambarkaagii rasiidka ayaa noo soo fax ayaanu haynaa adiguna ayaad haysa halkaas qofkaas ayaa ku guulaystay as xalaasha ayay u baxaysaa laba shardi oo keliya ku xiran inaad nagala soo qayb qaadatid si aad ugu guulaysatid oo nasiibka jamcaha uga qayb qaadatid kow waa taas waa mid haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa dad fara badan ay kasoo qayb qaadan doonaan midda labaadna waxa weeyaan haddii la yiraahdo oo ugu muhiimsan nambarka aad naga soo wacaysid iyo magacaagu inay isku registeraysan yihiin misaal ahaan Daxfiin Maxamuud Jaamac baa la yiraahdaa waxaan haystaa number Hormuud Soomaaliya jooga I'm giving you example laakiin magacaygan Cabdixafiin Maxamuud Jaamac iguma registeraysan waxa igu registeraysan Faarax Geedi Warsame qofka lacagta ma diri karnaa marka waa inaad numberka iyo magacu isleeyihiin si fiican u taqaanaa nidaamkaas u shaqeeyo Soomaaliya hore ugu dambeysay numberka magaca iyo magacu inay isku registeraysan yihiin
taas marka waxay sahlaysaa markaan soo wacday nambarkaaga shaashadan ka arkaynaa nambarkaasna laga soo wacay iyo adigu markaad isla haataan oo xawaalada aan geyno lacagtii aan idhaahno hebel ama heblaayar u diraynaa nambarkaagayna weydiinaya nambarkaaga markii lagu garaaco kombiyuutarkooda haddii la dhaho magacaanu ma rajis garaysna then we have a problem lacagtii kuma soo diri karna marka waxaan toddobaad ka hor waxaan kugu soo diraynaa inaad adiguna waxaaga habaysatid waqtina aan kugu siina aad ku habaysatid maxaa yeelay xaqiiqatan waxaan rabnaa inaad guulaysatid annagu adiga isma naqaano adoo anaga nama taqaanin dushaasun baa la iska wada arkaa laakiin waxaan rabnaa 200 inaad ku guulaysatid meel kasta oo dunida ka joogtid haddaad dalkii hooyi joogtid iyo haddaad dabadda joogtid wax dhibaataa ma laha meel kasta oo joogtid adoo ingiriiska jooga ayaad ku guulaysan kartaa $200 oo ehelkaaga u darsan kartaa adoo Boorama jooga ka qayb qaadan kartaa adoo Baydhabo jooga ka qayb qaadan kartaa adoo Hargeysa jooga adoo Muqdisho jooga xuduud ma lahan ama gobolka ragga Burcada jooga Togreer meesha doonto baad waad kaga qayb qaadan kartaa marka haddii aad meelahaas kala joogtid oo aadan haysanin maxaa lahaa nidaamkan lacagta lagu soo diraya degdega ah dan waxaan samayn karnaa magacaaga aad noo sheegtay markaad barnaamijka soo gashay baa lagaa qorayaa magacaas ayaa bangi ahaan lagugu soo diraya bangi ahaan baa lagugu soo dirayaa ama waxaad ka qaadan kartaa xaruntii oo baasaboorkaagii ama dokumentigaagii iyo magacii annaga aad noo sheegtay iyo nambarkii ayaa iswaafaqaya I think arrintaasna dhacay mas-uuliyaddaas idinka ayay idin saaran tahay aniga ima saarna maxaa yeele anuu magacyadiina ma qorin oo maxaa lahaa idin rajis garayn karo marka inaad idinku rajis garaysa magacaaga iyo taleefonkaa naga soo wacaysi uu leeyahay xaggee la idinka soo wacayaa see la idinkula soo xiriirayaa ayaa su-aal kala ah waanu idiin sahlnay waxaad iminka shaashada ka aragtaa number whatsapp ah nambarka ayaad kula soo xiriiraysaa nambarkaas waxaad ka soo wici kartaa waxaad soo wici kartaa barnaamijku markuu socdo barnaamijku markuu dhaco oo baxo ama intuusan soo gelin haddaad soo wacday cidna kaa qaban mayso maxaa yeelay haddii barnaamijkii aan bixin aad soo gasho dhahda khadkaan kusii jirayaa waxaad ka horeysaa barnaamijka ka qayb qaadan lahaa daas cadaaladda sidaa awgeed qofna kama qabanayno taleefonka inta barnaamijku uu hawada kasoo baxay kasoo galayo 8:20 niman baan soo galnay haddii la yiraahdo khamiista lagu soo socota hameen jamca soo galaya ah waana magac waxaan ugu magac darnay Soomaaliya markii gobolku uu dhaco maalintii kala soo galaysa meesha hadda aniga Ingiriiska hadda waa galab khamiista marka idin la hadlayo annaga waxay noo tahay hameen khamiisaad saasaa loo xisaabiyaa laakiin dhinaca islaamka iyo Soomaalidu waxay cusubeyso oo sida saxda ah waxa weeye idinka waxay idin tahay in jamca ah khamiis baa baxaysa jamcay martigelinaysa so 8 oo 10 dhiman baan soo galay hadda 8 iyo 10 dhiman markaan khadka soo galno channelkan Cabdixafiid Maxamuud Jaamac live-ka aan nooga daawanaysaan YouTube-ka aad soo gashin hadda markaan soo wacdi kaama qabanayno markii barnaamijku uu bilowdo 8 oo go saacadu ay ku istaagto raxmaanku uu raalli ka noqdo qofka horeeya ka qabanayna marka anagu qofka dadku say u kala horeeyaan waa taleefanka soo dhaco baad qabanaysaa oo kaliya qofkaas magaciisa sheegaya nambarkiisa laga qorayaa qoraalada ayaa gacanta loo gelinayaa dabadeedna nambarka u soo baxa ayaa loo fiirinayaa nasiibka jamcaha maxaa kuu soo baxay muwaadin waxaa ii soo baxay $200 qaadanaysaa barnaamijkan qayb kale oo xiiso badan buu leeyahay haddii waqtiga 20 daqiiqo uu yahay isla mar ahaantaana daqiiqadihii ay dhammaadaan waqtiga barnaamijka loogu talagalay u dhammaada lacagtiina aan lagu guulaysanin Cabdixafiid baashi walaalo maadaa jeebka gashanaya 200 xagee aade su-aal fiican weeye waa ka fakarnay adaan kula shaqaynaynaa jamcaha dambe ayaa lacagta loo rarayaa jamcaha dambe waxay noqonaysaa $400 laakiin waxaan jecelnahay jamco walba inuu qof guulaysto jamco walba inuu qof ku guulaysto $200 nambarkiisa loo eego waxaan su'aalaha dheer uga daynay waqtiga ayaan yarayn cadaalad marka ma ahan inaan waqtigiina dheerno waqtigiina kaabino aanu idin weydiino xaliyigii Soomaaliyeed Maxamed Cabdulla Xasan markuu taleex ka tagay taariikhdu markii ay 1920 iyo 20 iyo 20 yadii
uu halkaa usii socday xagee buu ku duulaya haddaan ku weydiiyo adigoo shalay dhashay ama taariikhdaas aan la socon waa cadaalad darro haddaan ku dhaho dhagax tuur xaaskiisii magaceedii saddexaad sheeg dee adeer ma garan karti anugu ma aqaano marka waxaan ku weydiiyaa kardarro marka saas awgeed in lacagtan lagu guulaysto waxaan ugu sahalnay dadka Soomaaliyeed nambarada halkaan lagu gurayaa waa la yara ruxayaa waa la isku qooshayaa dabadeedna waxaan leedahay hebel baan ahay heblaay ayaan ahay waxaan kaa soo wacayaa balab xaawo misaal ahaan gacanta jeebka wacada quraan gelinayaa nambarka ayaa soo baxaya nambarkaas soo baxa ayaa $200 ku qoran tahay adigu waad arkaysaa aniguna waa arkaya isku mar baan wada arkaynaa sidaa ayaa ku guulaysanaysaa marka waxaan jecelnahay week walba inuu qof guulaysto dadka qaar fikrado waxay soo jeedsheen ah 200 laba qof inay guulaysata ayaa wanaagsan ma uga dhigtaan hadda madaxweynaha mustaqbalka inuu qof $100 siiyo xoogaa yar oo ku waa kala xishooday 200 lama badna laakiin wax la'aan bay dhaantaa khamiista habeenkeedaan ku aadinay si subaxa jamcaha markaad toostid oo fajirkaagii tukatid oo salaadii jamcaha soo tukatid adigoo khamiiskaagii qaba xijaabkaagii qaba muqdisho jooga hargeysa jooga baydhabo jooga garoowe jooga ama galmudug jooga oo aanageel ku shuban yihiin 200 ama tii kaloo soo gaartay 400 aa ku guulaysatid oo 100 ehelkii aad u dirtid oo 100 saaxiibka aad u dirtid 200 aad maaragtay hawlo kale ku dabartid is beautiful marka nala shaqeeya waa idin la shaqeynaa hadii la yiraahdo ujeedada inta soo kaliya barnaamijku saas u soconaya hadii la yiraahdo saas ayaan su'aalihii u sahalnay week walba inuu qof helo marka week kasta oo la guulaysan waayo lacagtu way sii koraysaa laba bay noqonaysaa ka soo qaad mana u maleynaa dhici doonto misaal ahaan week laguma guulaysan week ku xiga 400 week ku xiga 600 bay noqonaysaa you see so $600 haddaad ku guulaysatid oo waxa aad ugu guulaysanaysa lagu fududeeyay laakiin waxaan ogahay khadka telefoonka inuu jam noqonayo oo meel kale istaaga la weynayo laakiin waxaan ku dadaalaynaa qofku ka soo horeeyo telefoonka horteedu saan oo kale u oolaya dabeedna waa taabanaya idinku waa maqlaysaan aniguna waa arkaya marka uu barnaamijku socdana telefoonka waa inaan silent ka dhigno si uu dharrow la isku maqli waayo qofkii magaciisa u maqli weyn qofkii kula hadlaya aada magaciisii aada markaas codkiisii aan isku maqli waynin oo si qurux badan noogu dhaco waxaasoo dhan waa farsamo weeye anaga idin farsameynayna haddii ilaha yiraahdo waan soo dhaweynaa fikirkan barnaamijkan sidaan u dhaco waxaa iska lahaa aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya ilaahay kusko wariya cabdifataax cali sharwac ka tirsan home cable oday soomaalida reer london ninkaasaa fikirka iska lahaa dabadeedna annaguna waxaanu ku darnay milxii iyo basbaaskii iyo xawaajigii baanu ku darnay adoo gurigaaga jooga ayay walaalaha ku shaqaynayaan waxaan jecelahay ugu dambeyntii haddii ilaha yiraahdo inaan kulligiin idin wada mahadceliyo dadka lacagta markaan u dirno rasiidyadoodii ayaan haynaynaa haddii ilaha yiraahdo warqaddii lacagta ay ku qaateen idinku koobi waa haystaan annaguna koobi waan haysanaa haddii 3 wiil kadib qof uu yiraahdo maalintaas aan soo wacay lacagtaas la iima soo diranin taariikhda la eegayaa dhag maalintii qofkii lacagta loo diray oo soo wacay waxa kaloo kasii qurux badan qofka maalintuuna soo wacay is recording iyadoo video ayaan haynaa codkiisii dan wixii dhan baa la iswaafajin karaa halkaa waxaa ka baxaya musuqmaasuqa wax isdabamariska lugooyada iyo kadeedka ayaa halkaa ka baxaya haddii la yiraahdo marka waa idin wada mahadcelinaynaa saaxiibadii muuqaalkan gaarsiiya kasoo qayb qaata nasiibka jimcaha la yiraahdaa iyo $200 adaa iskale ka faa'iidayso ugu dambeyntii aan u mahadceliyo xawaalada Taj UK iyo guddoomiyaheeda Bashiir oo ayagu doonaya inay bulshada Soomaaliyeed ay la qayb qaataan wanaagga bil Ramadaan baa soo dhow timir baa loo baahan yahay garow baa loo baahan yahay garowga waa xaruur wey baa loo baahan yahay xaruurkuna waa masago Soomaaliga aad buu qurux badan yahay tiro badan yahay loo baahan yahay marka inaan idin kala qayb qaadana ayaan rabnaa xawaaladu xirta in kala qayb qaadato isticmaala wanaageena iyo horumarkeena ayay ka shaqeynaysaa
waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo aniga cabdixafiida iyo asxaabta aan wada shaqeyno xawaaladu lacag ay siisay oo gaara oo barnaamijkan lagu barmood garaynayo ma jiro. lacagta ay bixinayso xawaaladu ay bixinayso waa 2,400 oo 200 pound 200 dollar week walba la bixinayo oo soconaysa 12 week. You do the maths and you get it right. marka anagu bilaash baynu kugu shaqeynaynaa inaan farxadda iyo wanaagga idinla qaybsanaan rabnaa. ugu dambeyntii waan uga mahad celinayaa taaj iyo guud ahaan kambaniga weyne hormuud ku xirnow saaxiib. insha allahu tacaala kumanaan kun oo soomaaliya ayay shaqaalaysiiyaan oo bariiskooda kala soo baxa si xalaal ah oo hufan oo qurux badan. waan u mahad celinaynaa sheekha iyo dhammaan tiimka iyo dadka sheerka kule iyo dadka shaqeeya oo dhan. waa hagaag. intaa kadib codsi yara waa codsi shardi ma ahan. markaan lacagta kuu soo dirno waxaan jecel lahay hadday suurtagal tahay whatsapp numberkii aad naga soo wacday inaad muuqaal yar ah oo 1 daqiiqa noogu soo dirto aad leedahay heblaayo hebel baan ahay hebel ayaan ahay dhaqaalahaas ayaan ku guulaystay waa mahadsantihiin. marka waxaan sameynaynaa hadhowto videoyaashaas waa isku kabaynaa barnaamij yar oo qurux badan oo marmarka qaarkood aan soo gelino dib loo fiirsado ayuu noqonayaa. waxaa kaloo noo suurtagelaysaa codkaagi waa maqalnay nambarkaagina waa haynaa magacaagina waa haynaa wejigaaga sharafta leh inaan uga soo aragno oo aan dadka kaga barano ayada laftigeedu isku weynaysaa. haddaad tahay gabar niqaab qabta niqaabkaaga adoo qaba waadna ku qurux badan tahay diinteenna sharaf iyo wanaag buu saaxiib tahay. haddii kalena waa okay ragguna waa dhag weeye waa faarax miirano anoo kala. marka waa mahadsantihiin. qaybtaa dambe waa codsi dooqa idinkaa iska leh wax shardi oo ku xiran oo aan ahayn inaad nagala soo qayb qaadataan magaciina iyo taleefonkiinu isleeyahay isku rajis garaysan yihiin hawshuna ay bilaabato nasiibkaaga jumcahana aad ka qayb qaadatid. waa mahadsantihiin. waa cabdixafiid maxamuud jaamac alifdaa cali shirwac iyo dhammaan tiimkeena isku wada xiran walaalaha ah waxaan idin rajeynayaa guul iyo gobol.